waxay kala heleen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil wuxuu helay 230 cod halka Dr. Salebaan Ciise xagla toosiyaro uu ka helay 114 sidaa darteed waxa ku guuleystay tartankii musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici waan tartamay waa iga guuleystay laakiin guuldarradu marbay guul tahay anoo hambalyeynaya madaxweynaha oo ah aasaasihii xisbiga kulmiye waxaan ka codsanayaa inuu dhiirigeliyo in dib loogu noqdo habnidaam doorashada xisbiga oo u baahan in aad loo improve gareeyo khaladaad badan in ay ka jiraan dhaliilo badan ay ka jiraan in mustaqbalka wax laga bedelo anigu han siyaasadeed baan leeyahay waxaan u taagnahay oo iga go'an midnimada Soomaaliland meel kasta oo aan u mari karo iyo si kasta oo aan ugu guulaysan karna waan sii wadaya insha Allah waxa weeye nin dhalinyaro baan ahay mustaqbalkuna waa badaya hankayga siyaasadeed iyo rajada aan ka qabo midaynta Somalilandna halkan kuma eka maanta waan sii wadayaa dagaal aad u adagna waan u sii gelayaa labada musharaxa maanta la doortayna waxaan leeyahay tartanku ma dhammaan waa bilow maantuu bilaabmay good luck baan idin leeyahay labadiina intii i dooratay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa in aad u danaynaysay ama u danaysa midnimada waddankan intii iga codaysayna waxaan ilaahay uga baryayaa inuu fahansiiyo midnimada waddanka looga baahan yahay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan taageerayaashayda